daawadayaal ku soo dhowaada youtube-ka Samiir Show. Raaxinta dhagihiinu waa waajibkayga inaad noo subscribe gareysaan waa codkayga. daawadayaal tani waa mid ka mid ah sheekooyinkan idinku talagalnay inay dhagihiinu ku raaxaystaan. inantani waa inan soo gudbinaysa sheekada iyo qisada nolosheeda kasoo martay tahriibka. haddaba waa tan iyadii oo ka sheekaynaysa dhegaysi wacan. qolka dabadiisa eedaan ayaa ka baxaya. qolka gudihiisa gurxan hoose ayaa ka baxaya. laba ayaa la isugu jeesaday. anigu kaligay ayaa nahay. waxaan aanu nahay 5 wiil iyo 2 gabdhood. qolka werwer ayaa hareeyay. nin ayaana wada. haddana lama joogo. hodheel magaalada ku yaala ayuuna keenay. qol ayuu nagu hareeyay. isaguna wuu iska baxay. faalooyin ayaa laga bixinayaa meesha uu tegay. qaar waxay leeyihiin ninku malaha uu ina dhacayaa. qaar kale waxay leeyihiin malaha ninku ciidan ayuu la shaqeeyaa. ciidanku la shaqeeyo ma garanayo anigu. hadalku maan darsan. wax aanan garanayn ma rabo inaan ka faaloodo. qalinkayga iyo buugayga ayaan isku mashquulinayaa. waa labadeeda saaxiib ee aan weheshado meel kasta oo aan joogo. iyaga ayaa dad iigu xiga. iyaga ayaan ku ciil baxaa. qolka aan dhex jooga ma weyna. waa 2 tallaabo oo dhinac ah iyo 3 tallaabo oo dhinac ah. hal sariir ayaa dhinaca bidix ka taala. maryahay oogadooda jirkaygu xoqayso ayaa si qaab daran u dul saaran. hal barkimo oo aad u buuran ayaa dul taala. dhulka cawl xidhifyada go-an ayaa sibirka qabow dishiisa dul dhexmoonaysa. markii aanu soo galbanay inamadii aanu wada soconay cawada midba meel ayuu qabsaday. hablaha ayaa sariirta leh ayay markiiba ku dhawaaqeen. aniga iyo nimco ayaa sariirta iska seexanay. dhammaantood isku iskuul ayaan nahay. 29kii sebtembar ayaanu ka qalin jabinay jaamacadda. anigu waxaan bartay xiriirka caalamiga ah. waxaan filayaa inay sheekadaasi idin cajabisay. haddaba si aad u heshaan sheekadan iyo sheekooyin kale ka xiiso badan inaad subscribe-ta noo saartaan waa codsiga.